injineer maxamed cabdullaahi xuseen shoortaayo ayaa magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxa uu kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan jagada madaxtinimo ee 2019 waa madaxweynaha Puntland xilli ay soo tarayaan musharaxiinta u tartamaya ama u taagan xilka madaxtinimo ee Puntland iyo sidoo kale jagooyinka baarlamaanka oo 2018 lagu dhawaaqi doono warbixintan waxa inoo eegaya wariyahana Maxamed Axmed Jaamac Maxamed Bidaanshe waxaa si xawli uga soconaya magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ololaha musharaxiintu ugu jiraan doorashada 8 January lagu wada inay qabsoonto madaxtinimada Puntland 2019 mid kamid ah hoteelada ugu waaweyn magaalada Garowe waxa musharaxnimadiisa uga dhawaaqay injineer Maxamed Cabdullaahi Xaaji Xuseen Shoortaayo oo kamid ah aqoonyahanada Puntland iyo geeyiga Soomaaliya ka ah barnaamijyada soo saaray jiilal badan oo ka shaqeeya hay'adaha caalamiga ee Puntland iyo Soomaaliya siyaasiyiin nabadoono ganacsato aqoonyahano haween taageerayaasha musharaxa iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa goobjoog ka ah munaasabadii ku shaacinayay inuu musharax injineer Maxamed Cabdullaahi Xaaji Xuseen taagan yahay leelinta hoggaanka madaxtinimo ee Puntland 2019 mas'uuliyiinta kala duwan ee madashaasi ka soo qayb galay ayaa hadalka mid u qaatay waxayna musharaxa ugu duceeyeen inuu Ilaahay ku guuleeyo xilkaasi musharaxa madaxweynaha injineer Shoortaayo soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawow waa ku garab taaganahay haddii alla idmo ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa inaad noqotid midkii ku guulaysta xilkan madaxtinimada Puntland ee 2019 ومحمد عبد الله حاج وعسونا وغيا عاقل شرطي عامية وغيا عاقل شرطي عامية وقرش ذكي عرشيو عدك لغا Puntland waxay u baahan tahay qof ka fakira fogaan araga maanta ito waxaad awoodaa in aad wax ka bedeshaan intiinan generationka soo socda iyo idinkaba inaad wax ka bedeshaan qof waliba gurigu ka soo toosaa guriga uu ka soo tooso wuxuu ka qabto uu dhigi karaa xildhibaan noo door qof wanaagsan ilaahay baa mahad iskale in caawa laygu shafro Puntland markii ugu horeysay aan macallinkayga u imaado oo soo safro waxaan idinka rajaynayaa insha Allah ta'ala in loo hiiliyo wanaaga qofkan yaa loo hiilin laakiin wanaaga ha loo hiiliyo marka wanaag buu wadaa insha Allah ta'ala waana u rajaynaynaa Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasri khayr qaba ha siiyo madaxweyne iyo maamul wanaagsan Allah nagu soo beego insha Allah ta'ala asagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u sakhiro wanaagana ha tuso gabagabadina musharaxa ayaa halkaas khudbad ka soo jeediyay dhinacyo badan taabanaysa oo ku doonayo in lagu doorto qaybna ka ah siyaasadiisa hogaamineed mudanayaal marooyin ma ahaan doono anigu nin waasta loo soo maro oo qof intuu qof kale u soo maro yaa hebel yaqaana wallahi inaan idinka xiraan doonin anigu amnigayga waa la sugi doonaa oo dawladda iskale nidaamka iskale laakiin wallahi bulshada kama xiraan doonaan role modelka in madaxda lagu waardiyeeyo qoryahan waaweyn oo maalin aan loo ridin qof mas'uul amnigiisa oo khalkhal galay ma dhici doonto aniga in lagu waardiyeeyo kuwa sababtoo ah uma baahnin oo goobaan dambiilo noqda caawa waa idinla joogaa hal qof oo waardiye aniga lama socdo dambiil aan noqonaya marka haddaad xil ii dhiibataan oo aad aamintaan markaasaa ma anigu sii wanaagsanaanayo dee ammaan baan dareemayaa dambiil aan ahay wallaahi aamina waxaad haysataan waa lidiin waardiyeyn doonaa laakiin aniga shakhsiyan haddii la iga kiin waardiyeeyo dee waxbaa khaldan marka mana dhici doonta arrintaa iyada arrinta xigta waxa weeye dalkan waa mar labaad baan leeyahay duugiisaan leeyahay waxaan rabaa pension inaan ku galo oo aniga oo tukubaya inaan maro sida hadda la ii ammaanayo la ii leeyahay aabbo wey in waagaana la ii yidhaahdo aabbo ammaanta micno darradaa ma jecli ammaantaydu waxay ka muuqan doontaa waxa aan sameeyo qofna iguma laaluushi doono inuu ammaano haddii alla idmo ammaanta waxaan rabaa marka aan xilka ka dego in la yidhaahdo waagii shaqo wanaagsan baa qabatay khayr allah ku sii nin baa maalin dhow wuxuu yidhi waxaan rabaa waan kuugu imi ma aqaan markaa ninkaanu waxaan kuugu imi inaan ku yidhaahdo mahadsan wajisaaka allahu khayr waxaan yidhi mahadsanida waxaan kaa leeyahay adigaa mudan jisaaka allahu khayrana waxaan kaa leeyahay wa iyaaka
laakiin maxaad intaas mahadsanid igu tiri aadna iigu ducaysay wuxuu yidhi 8 jir anigoo ah ayaad murabbi in noqotay oo aad wax bartay wixii aad i bartay baan manaafacaadsaday ilaa maantana aan manaafacaadsadaa mar walbana waa kuu duceeyay aad baan baraarugu inooga arrinaya qalbiga wanaagsan ee aan leeyahay iyo waxa aan maaganahay haddii la igu dooran waayo hadda waxaan u malaynaa ilaahay meel kaloo inoo wada khayr badan baan idin rajeynaya insha allah taala محمد أحمد جامع محمد بدانشي تلفزيون كعالمي SBS قرو